banu dalaa laakiin ninka uu dhuntay ku ninkan ninkii magaalada keenay baad adigu marka sirti soo dhabaadaysa Abdigaan ana waxa iga baxsan laakiin saadam iga baxsan weys salaamu alaykum daawadayaal halkan waa Bulala Media oo alaabad nooga barateen barnaamijyada xiisa galiya waa mar kale iyo sheekooyinkeeni qosol iyo qaraaxo habeen kasta waxaanu idin hor keenaa dadka ugu activesan magaalada Nairobi khaasatan xaafadan Isli dhalinyarada ugu fircoon ama talented ka inta badan aad kala socotaan warbaahinta ama media-da labada nin ee caawa garabkayga fadhiya waxaan maleenayaa caawa aad baad u qosli doontaan waa laba nin oo qaali ah oo garanaysaan waa Maxamed Dhaanto iyo Axmed labadaba aad u mahadsan yihiin sida quruxda badan ee caawa barnaamijka inooga achieveen inay naga qayb galaan Bulala Media marka hore waan idinku soo dhaweynayaa idinku mahadsan aad baad mahadsan tahay abwaan maxaad dhaday asxaabta abwaan aad baad mahadsan tahay caawa halkan fadhino waa Bulala Media waan gartay run ahaantii anigu waa habeenkii ugu horeeyay Bulala Media martida ku ahay صح inta badan waxaad igala socoteen Jila Channel وشكويني وحقرف بدن كلها aad تفكين بدن بيقصلا marka halka sheekayni sidii waliba maseerka qaybta maseerka waxa soo dhaweynaya Maxamed Dhaanto oo saaxiibkay soo dhaweynaya isagana mar labaad iyo mar saddexaad dadka qabanaya dadka qoslaya waxa ku leeyahay horta dadka inta badan oo dhaanto tumay ku arkaan okay caaw culimada kuma ado inta badan dhaanto tumay ku arkaan oo sidan leh sheeko mal marka waad waxaad ku fiican tahay ba khamiiska iyo wada xaq wadaadnimadan aad baad ugu fiican tahay waxaan ku gaaray camo waa soo nijo camo ku gaaray dugs dadka ii sheegay juz camo oo rasmiina حسين اسمع علي وتقرني اظن مع علي اكل سمع عمو قرني عمان ku gaaray heeri dib laakiin ma iska noqotid masaajidka sigiska hadda dad tagilay imaan baa laga dhigay isma markii la boogay iyo saadu fi khamiiska iyo haybada wallahi saacada weyn iyo waxan aad buu maadsanyahay saxaabtay waxaan rabnaa inta aan kolka hore su'aalaha aan weydiin doonaa inaan u gudbin waxaan rabnaa kolka hore in min hal sheeka oo dadku ay ku qoslaan aad soo qabataan yaa horeynay أنا هريني ما أنت أنا نيري وسجله أيوة بالله حرتا هذا نص عام سؤال ما كسيت شو قالنا حلاش شمس ولا مذوذ الواقع كي ما أنا هوا سوين أظن ما قرني حاجة كتير ولا كيبلي هذا ما يبولشوي بولشو ما قال هذا نصوغ قال أيه ما حاجة كنا مقرن ناينك يسيكس كميشو ناينك يسيكس كميشو بس اسلي لما بس تقال مال خان إلهي أنت متشرت أيه معلم نصبح أيه هاي سؤال الجبسي واحد صدواي أنا جبسي قاعد وشعلان لحم بلقده هذا واحد الدوام تكسيد كلامين نيو ما من دام بقولش إنك خاتم ما حنطور سمجن حل حبوا جبسي لا حبوا كنا أيه ما حنطور تقولي يعني صح قولي له لمبر بقول قول كستور محل ملك قرن يا رب لا يا أيه سام السعود قولي وان تجاه حاجين قولي كجرن أنا أكبر حد ما سيفريستون سانو فدي waxaan maadana todobada maan maqri markii lagu koro aadama kooriiro habar dhasho guriga soo bixin baan arag aysan guriga ku roore war maxaa maadana dibadda fadhiyaan guriga raadinay maanta igu taariikh badneedoy ee ku soo martay hadda hore waa taqaana ma isha meeshan doonad ma allah doonhom ay tagan doonad meeshan habeen tan qatar iska dhig balaaga sacabta shubashan kullaysa ma arag gacmaha sal dhahay waxaan oo وديزده لين باش قاعد ما زال ودا الله يقادا اوني اوف لين مدهي شو انت سولو سان قطر سيغدي انا ما قعمها غير ما يقوليسته سان قطر سيغدي مid عارفكم حارك سود قبو قعميسا ku hay oo dhaqaaqa markuu dhaqaaqa qof marka dhigay baasha markuu dhaqaaqay maya soo walo dhabeeyaan waxan aan mana garanay oo dhaqaaqa balaad arkeen saama lama dhaqaaqan san adeer kala ooni of itaaw sidii aan soo nin la garanay aan baan maxaa ku ceeyoona waxaan ma garanay ma eeba maya marka aad baan salaam Soomaali intaas aniga taariikhda aad buu maasayay Maxamed Dhaanto horta dadku inta badan ma aqaan ceeb ma aha Soomaalidu laakiin ceeb bay u taqaanaa aniga laftirkaygu waxyaabo fara badan baan ogahay Axmed Dhaanto ku soo dhaweeyay sheeko oo aad baad mahadsantiin halkan nagala socotaan waa Bulala Media han nagala baqaylina subscribe share like comment inta baan nagala baqaylina صح runaantii aniga taagan tahay Maxamed Dhaanto uu ka hadlay wixii soo qabsaday sketch anoo gardan ma sketch runaantii laga rabaa run baa anigu waxayga waa run waa true story true story waa true story waa saaxiibkay dhiga true story anigu sheeko waxaan ka rabnaa wonderful markan aniga runaantii Nairobi muddo badan baan joogaa inkastoo waaga Nairobi saa u soo galay waan ka sii gudbay xageed
afrikada dabadeedan tegay ilaa iyo South Africa-dasan gaaray waan soo noqday oo adiga 2016 December-kii yaan wadanka ku soo noqday صح live-ka Nairobi markaas uu bilowday Nairobi live-keeda markaas marka hore orod baan ku dhaafay maxaad kala kulantay safarkii dheer ilaa South Africa socotay taasan rabnaa sheeko inaad ka si socodkaagii mukhallaskii ku qaaday ilaa meeshii lagu mariyay mabuudka xageelada ku xaray ila wad wal mawaalas wallahi horta niyo South Africa sheekada haddaan iyada lafteeda ka bilaaban anigu South Africa waxaan aaday 2014 baan aaday 2014 ha ay 2014 haddaan aaday waxaan nagala qaaday halkan aad kala booday mukhallaska townki Nairobi aan naga qaaday annagoo 7 qof ah yaa waxaan raacnay gaari 7 seat ah oo dheereeya gaarigii 7 seat ka ahaa 7 qof oo rag baan ku fuulay 7 seat waa ka 7 qof gaariga 7 qof qaado ala qof waxaan nagala qaaday adiga lacag gaarayso $900 lacag $900 ahayd markaan bixinay kaarkeena caafimaadka gacanta nagala geliyay sidiiseen gaari waan ku dhacnay maalinkii oo dhan baan sii soconay waan garanayaa gaari 7 seat oo KPT oo ahaa maalinkii oo dhan baan sii soconay habeenkii oo dhan baan sii soconay Tanzania galnay Tanzania kuugu daray dad soo qabanaysa shaqada lagu dhartay halkii kuugu daray safarkaas waxa iigu daray markii inta nala geeyay xuduudda Malawi South Africa iyo u dhaxaysa Zambia man bahashi Zimbabwe laba nin noola dhiibay la yiri labada ninna sahay looga soo dhigay 12 xabo qamra oo qamri baa abiya nimankan wada sahayda ay wataa waa 12 xabo qamra waxaa la rabaa inay naga wadaan Zimbabwe xuduudda ay nagoysiyaan maxaa la dhihi jiray meesha webi yar oo meesha ku yaala xuduudda siliga ay naga hoos dusiyaan geeska kale South Africa borderka kale ayna istaajiyaan gaarigu meesha noogu iyo meesha naga qaada la rabaa khamrada damiyaga baa cabay laakiin idinka iyaga cabay cabaydan meel oo idinka iyo cabina male nin sirqaan santa garan ma maayo meesha marayay hooga habeenkii baa noola dhiibay habeenkii oo dhan bay duur nagu hayeen habeenkii oo dhan say duurka noogu hayeen yaa waaga markuu soo dhow yahay yaanu ku nirimaadna wadaan awowgin la naari ilaan niman bay nala sugayaan waa nala furan rabaaba oo idinkeedana ma idin dhacaan annagaaba nala laqi rababa okay markay sheekadii meesha mareysay waagina uu bariyay yaa go'aan un baan hoos ka qaadanay صح naxala abinku yala nijaasadan maxaa naag dhigay labada nin ee qamrada cabaysa aqligan ka sugayno on annagoo 7 nin oo Soomaali ah keeni weyna maxay tahay aminkii baan nimanku ku gacan sayrnay war nagala tagaan naxala idinkii qamradii nabadin ku yaale waan soo baxnay markaas idinku daray markaas noogu daray markaan soo baxnay yaa diiday inaan dhaqaaqno nin iyo dhalo dhash dhalooyin baan jabsanay iyaga baan afduubnayba haddana wadana kaxeeya gig oo wayna hor dhaqaaqeen ma waxay siligi naga bootininoo meel walba na marinoo wadada bayna istaajiyeen Soomaalidu adag tahay maad walantahay Soomaali ma rag lagu soo degdega Soomaalidu lama geli kare aad baad mahadsantihiin Axmed buu ahaa kaasina oo sheekada quruxda badan la wadaagay safarkiisii dheeraa waxaan ku soo gabagabeynayaa nin la dhaho nin magac lahaa oo inta badan sheekooyinkiisa laga sheekeyn jiray baa jira Cabdimelo la dhaho oo sheeko badna yaan sheeko u lahaa yaro gaamban hal mar soo qaadanaya wuxuu yiri gabadh tiyaro in wuxuu ahaa isaga aftahan tiyaro oo wuxuu dhahay adeeg loo diray oo sonkor iyo wax raadi lagu yiri oo ordaysan meel ku qabtay dhakab nin shukaansi badan oo gabadhii guriga la tagay oo xogaa u shukaansaday oo mar dambe laga war helay inuu gabadha guriga ku shukaansanayo haween baa soo galay waad karnaa way kala boodeen adiga waa kala yaacay gabadhii isaga way kala boodeen haweenka marka sheekaysanaya wuxuu leeyahay haweenkii markan ka tagayay sheekaysanaya waxay leeyihiin taqan Allaahuna cawdanay gogladeen oo cajaladan ay ku riteen oo candhadu ka shaqaayeen cid baa waru haysay baa mid baa dhahaysa markaas tii kale waxay leedahay Allaahuna codkiisaan garanaya waa kii Cumar dheer ahaa alcawadiisa muxuu cusubtaa qabiil cusub kaga dhuftay
haweenku way soo camiraan ها شو عمره isagoo iska hoos qaadaya codkiisaan garanaya lacawadiisa muxuu cusub daaqay bila cusub daaqi hay marka nin aad u sheeko badan buu ahaa barnaamijka aad baad u mahadsantihiin caawa oo ay nooga soo marti noogu ahaayeen nagana soo qayb galan Axmed iyo Maxamed Dhaanto oo saaxiibaday ah oo labadeeda garab fadhiya Bulala Media sheekooyin fara badan oo mar kasta aad ula dhici doontaan baan idin soo gudbin doonaa laakiin waxaan idin leenahay mar kasta intii yar nala dhaafina inta yar hadii la وينaa ya lugta ugu dar sulka baa la weynaya ma xir badartuna ugu dar ma la qaba ma ya dhada qof telefoonka jabide ما قجوي gacmahayna mashquul yihiin laga yaabaa gaba hatta haduu way tiri wax keenay aan baan u dalaa laakiin ninka uu dhuntay ku ninkan ninkii magaalada keenay baad adigu hadi marka sirti soo dhabaadaysa abdigaan ana waxaa iga baxsan laakiin saada ma iga baxsan weys sidaas iyo nabadgelyo iyo baa macaan